عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن مال كستو أن نقد داونيسان ومدة الصومالية دي waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka ee aan kor ku xusay nabadgelyo naxariis tushiina haato waa mar kale iyo madal kale halkan waa samawada media halka aan youtube-ka iyo baraha bulshada aan ku leenahay maanta hadduu eeba idmo waxaan ka hadli doonaa arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya mustaqbalka soo socdo hadda mid ka taagan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe maxay isku diidan yihiin amuurtu waxa waxa dhibku uu ka taagan yahay constitution-ka iyo sharciga Soomaaliya oo dhameystirnayn oo xad iyo waqti aan kala siinaynin dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada mase waxa la yiraahdo federalism-ka ayaan wali loo bislaanin oo aysan garanaynin waajibaadka cid walba ay leedahay amuurahaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa waxa marti igu ah siyaasi da'yar oo ka soo jeedo gobolada Jubbooy waa gobolada aan dhahay ee Galmudug kaasi oo lagu magacaabo Cabdi Khadar Cabdiraxmaan Xuseen kuna magac dheer xildhibaanka kusoo dhawo marka ugu horeyso samawada media waa maasanta cali waa ku dhawahay samawada media mid kale xogaa saytaana sameeyo Galmudug iyo Jubbooyinka labadaba ka soo jeeda Galmudug iyo Jubbaland labadaba soo dhawo marka ugu horeyso su'aashan ku weydiinayo waxa weeye bal aan ku hormarno Galmudug waayahan ayaad moodaa in birta ay suran tahay amaba ay tahay meesha ugu horeyso ee doorashada ay ka jirto bilaha soo socda bishaan baan dhahay bal iga waran xaaladda Galmudug waayahan al-sunna wal jamaacana waxay magacawday ilaa 20 xubnood oo baarlamaanka u matali doono odayaal ka soo jeedo ka soo horjeedo waan arkayay galaangalka dawladda dhexe iyo dadka deegaanka bal ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waa mahadsantahay cali oo adiga iyo hadii alla ku simo galiyahay samawada media Galmudug horta alxamdulillaahi rabbil aalamiin Galmudug hadda intaan ka warhayno xaaladeedu waa degan tahay doorashadii baa la qabanqaabinayaa sunna iyo dawladda isku sibay wax u wadaan sunna 20 xildhibaan baa la siiyay 20kii xildhibaanna way soo magacaabatay insha Allah ta'ala dawladana waxa rajeenaynaa inay ka aqbali doonto midda kale waxaad ogaataa Galmudug waa meel iska dhib badan weeye Soomaaliya meelaha ugu dhib badan bay ka mid tahay sababtuna waxa weeye waa meel corruption weeye ummad badan fara badan baa degan oo kala gedisan marka tabasha lagama waayahay markasta laakiin mar walba annagu waxa rajeenaynaa annagoo dhanka wanaaga fiirinayna hadii ilaahay idma in lagu guuleysan doono oo hawshu iska dhamaan doonto dawladana gacanta ku hayso cali intaan ku ogaay wax problem ku jiraan sidaan ogsoonahay inta badan waxa la qaatay nidaam federalism oo laba gobol iyo bar iyo ka sii badan lagu midoobi karo sida gobolada ama maamul goboleedyada hadda ay u shaqeeyaan waxaana la yiri sida uu qirayo sharciga federalism-ka in gobol walba asaga ismaamulo madax iyo leader uu yeesho xubno dhaxa uu yeesho baarlamaan uu yeesho golo guurti uu yeesho ay u madax banaadaan wixii falsamo ah oo hadee aan looga marmin oo dawladda dhexe waa meesheeda iyo ama dhaqaale ah laakiin sida kale dadka deegaanka maadaama waxaan federalism la yiri inay u madax banaadaan xogaa dadku waxaad moodaa halka khilaaf badan uu ka jiro dawladda nabad iyo nolol inta badan lagu eedeeyo in galaangal iyo gacmo badan ay ku leedahay arrimaha doorashooyinka gobolada ama maamul goboleedyada aan dhahay arintaas maxaad kala socotaa wallahi cali intii aniga xog ogaalnimadeyda horta wayba tahay oo Galmudug hadda waa maamul hadda asagu waa run oo nidaamka iyo dastuurku wuxuu qorayaa in maamul walba madax banaanaado oo asagu ismaamulo oo dawladdu hadda baarlamaanna uma magacaabayso madaxweynena uma magacaabayso gudoomiye baarlamaanka uma magacaabayso laakiin dawladdu waxay hawshaasi tafsiilaadkaasi u fududeynaysaa guddi doorashay saan Galmudug ka warayna madaxweynaheedii hadii alla ku jumlay xaaf xamar buu joogaa isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug muddo badan khilaaf baa ka dhaxeeyay cadaadiyo dhuusamareeb bay kala fadhiyeen dawladdu waa ku guuleysatay meel bay isugu wada keentay dhuusamareeb baa haddana lagu sii kala khilaafay marka waxa weeye dawladdu ilaa haatan inta aan ka warhayno wax faragelina oo hadda aan oran karno dawladda waxaas maraqsatay iska jiraysaa nidaam jiro horta tabasho way imaanaysaa iyo bilow aadanku ma ogtahay mar walba meeshaas ilaa sidii la rabay wax walba ma ahaanaya laakiin dawladdu hadda cali intaan ka warhayno si fiican bay waxay wada guddi bay magacawday guddigaas dadka meesha u dhasho beelaha bay ka soo wada xushay waa guddi lagu wada qanacsan yahay waxa weeye odayaashii iyo wixii waxay dhaheen Galmudugtii lagu horo la dhisay oo cadaada lagu dhisay saxiixayaashii waxay dhaheen waxba laga bedel maayo marka inta hadda aan ka aragno ma anu hadda iima muuqato faragelin toos oo hadda dawladdu ku hayso dawladdu waa u fududeynaysaa wasiirkii arrimaha gudaha jooga ra'iisul wasaaraha 2 bilood jooga soo heshiisiinayay
galmudug ayadoo gabigeedaba laba gobol iyo bar ahay waxay u kala xirnayd 50 xaafadood. horta halkaas aan ku noqda gobol iyo bar sharcigu ma buuxinaya baad umalaysaa shuruudihii loogu talagalay? wallaahi niyahow soomaalidu waxay ku maamaadaa matag meesha rabtay kuguma simo. galmudug dastuurka hadda waxaa ku qoran maamul goboleedku inuu noqdo 2 gobol iyo wixii ka badan, laakiin iyadu hadda 2 gobol ma dhamma. saasoo tahayna inta lagu wada inta Soomaali isku timid oo dowladda federaalka ayadu xasan sheekh dadaal badan ay ku bixisay haddana maamulkaas adu waa la isku waafaqa. maamulkii haddana labada gobol oo wax dhimanahaaba haddana wuxuu yeeshay intaasoo maamul oo kale oo khilaaf iyo waxba ka jiray. laakiin alxamdulillah hadda sida wax ku socdaan si maaragtay dhib badan hadda ma aha, si wanaagsan baa hadda wax u socdaan. ahlu sunnihii hadda dhuusan reer fadhiyay waagi central state la baxay iyo maamul galmudug waa la isu keenay. adugu marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis hadda sanadka cusub oo soo socda maamul loo dhan yahay Soomaaliya oo dhan, Soomaalida deegaanka ay u dhan tahay oo aan khilaaf lahayn inuu ka soo baxaan rajaynayna. dowladana aad iyo aad baan ugu ammaanaya. waa hagaag intaan kaga baxa galmudug guud ahaan waxaan rabaa su-aal inaan kaa weydiiyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dowladda dhexe waa maxay waxay horta isku diidan yihiin? ma arrin sharci oo constitutionka iyo buwaagta ay qorayaan sharciga u degsan dowladda iyo dalka u degsan baa la isku khilaafsan yahay oo inta badan maamul goboleedyadana qodob bay cuskadaan, dowladda dhexena qodob bay cuskadaan. arrinta halka sarta ay ka qorantay ee la isku diidan yahay dowladnimada ay isla jaanqaadi la yihiin wax xagee baad isleedahay? waa su-aal wanaagsan cali. horta inkastoo anugu hadda sharciya aqaan aanan ahayn oo dee ma ogtahay sida saxda ah oo aanan lahayn qodobkaasi isku diidan yihiin oo laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa laf jabtay sideedii ma noqoto. annaka dowladdii federaalka dowladdii kacaanka markay naga burburtay waddankanagii fowdo iska galay ilaa dhowr iyo 20 sano iska burbursanayn. haddana waxa weeye sistamyo kala duwan baan soo marnay. ra'yi ahaantayda marka hadda maamul goboleedyada xitaa hadda jira kulligooda wax qabiilkooda salaysan markii xaqiiqda la eego. maamul goboleedyadii marka waxay rabaan nin walba awood gooni ah buu sheeganayaa. dastuur hadda Soomaaliya dhammaystiran oo dastuurku weli waa ku meel gaar inta loo wada codeeyay meel walba laga wada ansixiyayna ma jiro. dastuurkii ku meel gaarka ahaabaa waxyaalo badan la isaga hor imaanaya, sida hadda awoodaha hadda la isku haysto kale, awoodda arrimaha dibadda oo kale, arrimihii gudaha oo kale, qodobada la cuskado qodobka 56 iyo 54 waxbaa la sheegaa. laakiin adigu muhiimiyaddu waxa weeye maamul goboleedka iyo dowladda dhexe sharcigii saxda oo kale hagi lahaa baa on the process ah sida hadda anigu aan xogta ku hayo. cabdi khadar sanad ku soo nahay Soomaaliya ciidamo shisheeye joogo oo tiradooda aad u fara badan tahay in ka badan 10 sano joogeen. ciidamadaas waxaa loogu talagalay in Soomaaliya ay kaabaan oo dhanka ammaanka ay ka kaabaan iyo nidaamka ciidamada iyo waxyaabo fara badan markii la eego oo waa ciidamada marka dowladana inta badan waxaan la ogolayn ciidamada dowladaha front line-ka la yiraahdo ama dariska ah in ciidamadooda waddanka dariska ay galaan. waayo saad la socoto waddan kasta oo daris ah, laba waddan oo daris ah wax un baa ka dhaxeeyo, muran baa ka jiro, dhul bay isku haystaan, dad baa ka dhaxeeyo. arrimahaasi marka sii daba dheeranayo ood moodid runtii Soomaaliya in ciidamo hor lawo inay imaadaan wax ka noqonay ma la arag, ammaankana weli khalkhal uu ku jiro. saamaynta ugu dambaysa arrinta ay keeni karto ciidamadan shay dowladahan dariska ah ood ogsoon tahay awalba in Ethiopiana dhul fara badan Soomaaliya ay ka haysato yana dhihina adugu dad badan oo Soomaali ay degan yihiin dhul Soomaaliyeed uu yahay iyo dad Soomaaliyeed xaggan ay tahay Kenyana ilaa 3 gobol ay yihiin, halkaan ilaa 9 gobol iyo kasii badan ay yihiin. marka arrimahaas saamayn ma yeelan kartaa in Soomaaliya laguba xadgudbaba qarannimadeedii waxa la yiraahdo sovereignty la yiraahdo oo madax banaanideedii? waa su'aal wanaagsan cali. anigu hadda waxaan aaminsanahay mar horaaba nolaa xadgudba wax hadda noo dhiman oo nolaa samayn lahaa maba jiraanba aniga aragtidayda. Soomaalidana waxay tiraahdaa caatan nin loo ku jiifaa ma kacdo. Soomaaliya ciidamadan shisheeye waxay soo galeen 2006 waagii maxaakiimta waddanka haba kala dambeeyeen haba kala sharciyeeyo magacyaha loo kala yeelo. ciidamadaasu Soomaaliya nabadeynayna bay dhaheen, sidaasay ku soo galeen, calankaasay wataan ilaa up to now-na anigu ma aaminsani wax ay qabteen oo sax inay jirto. ciidan shisheeye hadda wax ku qabanaya hadda adigu wax isku qabanna ma jiro. ciidanka shisheeye aeroboortka xamar meela adigu waxa ay joogaan waa meela cayiman.
midaan hadda aad leedahay oo kale oo madax banaaniday ama ku xadgudbaan waa nagu xadgudbeen hadda doorashadii ugu dambeysay Jubbaland markay dhacday kadib dawladdu amar bay soo saartay waxay dhaheen diyaarad aan muqdisho imaano waddan kale yani meel kale kama imaan karto waana la ogaaday October diyaarad toos u soo duushay Nairobi ka soo duushay Kismaayo ku dageysay ciidamadoodii baa jooga marka waxaan oran karnaa annaga ciidamadan hadda shisheeye oo waddanka naga jooga haddaan Soomaali markaan haddaan isku tashan haddaan hal mowqif yeelan haddaan waxa annaka noo dhaxeeya aan inta meel iska dhigna aan oran wardantii guud aan fiirsano waddanka nagu khatar buu galayaa waxyaalaha ku galayana waxa weeye Ethiopia ciidan baa ka joogta Kenya ciidan baa ka jooga Uganda ciidan baa ka jooga wadamadii ciidamada xitaa Uganda iyo hadda Kenya iyo ka jooga Ethiopia ma xisaabsan waqti sababta xuduud bay leeyihiin xuduudaha annaga ma kontroli karno sababtoo ciidan Soomaaliyeed oo qaramaysan oo tirsan oo leeyahay halkaas fadhiyaan ma jiro marka aniga waxaan qabaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay war walaalayaal waxa adinka ina ka dhaxeeya ama danta shakhsiga ah goonidhiga dalkii Soomaaliya sidaan ku hagaagsan lahayn oo ku wanaagsan lahayn oo xuduudahanaga iyo amniganaga aan ku sugan lahayn aan ka shaqeyn marka waxaan qabaa haddaan la helin isku tanaasul siyaasadeed iyo isku soo dhawaansho iyo wada qaybsi inaan ciidamadaas aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulkhadar inta aan ku kulmayno kulanti dambe oo kan la mid ah waa qaybta koobaad ilaa iyo qaybo dambe aad maqli doontaan dhageystayaal aad baad u mahadsan tahay soo dhawow intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanba waraysigii aan la yeeshay siyaasiga inta badan noo falaqeynaya arrimaha Soomaaliya Cabdikhadar Cabdiraxmaan Xuseen oo loo yaqaan xildhibaanka halka aad nagala socotaan oo ka daawanaysana waa Samawada Media anigoo Cali Cabdi Cilmi ayaa barnaamijka la socodsiinayo idin soo tabinaya xagga kaameradana waa farsamo yaqaan Xamza aad baad u mahadsantihiin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartaan oo gaarsiisaan dadka kale ee walaalaheen si ay noola socdaan qaybaha dambe ee barnaamijyo dambe oo kuwan la mid ah waraysiyo ayaan idin soo wadnaa inta ka horeysa waxaan leenahay sidaa iyo nabadiino iyo nolol kulanto